markaana Suudaan fatahaad ka dhalatay dhimasho iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhacday dalkaasi Suudaan. sawiro ayaa daabacday warbaahinta dowladda Suudaan ayaa muujinaya guryo badan oo dumay, in ka badan 70,000 oo guri ayaana dhulka ka hoos maray, waxaana roobabkaasi oo dabaylo watay isu bedeleen fatahaado, oo waxaana dadka ay marqura ku noqotay laba filaan kadib markii roob dabayl xooggan watay oo halkaasi ka da'ay misna daad isu bedelay. waxaa qaar badan oo ka mid ah dadka uu saameeyay ay ka codsadeen maamulka in ay si degdeg ah gargaar loola soo gaaro, iyagoona sheegaya in ay bannaanka seexanayaan oo hadda aysan haysan guryo. afhayeen u hadlay golaha qaranka ee difaaca madaniga ah Generaal Cabdul Raxmaan ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkaasi Suudaan in qaar ka mid ah dhibanayaasha ay u qareemeen daadadkan ay ka badbaadiyeen, haddisana ay ku dadaali doonaan sidii ay ku heli lahaayeen guryo ay seexdaan. qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan daawadayaal warbixin gudaha idaafaca caalamka inaga soo gaaray anigoo durdurahay idinla socodsiinayay Suudiya dhexe Muqdisho ayuuna warka si toos u idinkaga imaanaya kan iyo war xiga intaan dib ugu kulmi doono nabad iyo warsan.